السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا لا يلسود وهذا مقال كلمات وحربا صدح جناعسي وفضفضود إن عند اليرد الصوماليات أن فكرة دهان هالكنوجس وجود بيو أنت أنا جود جلين وفكرة دهان أين نسلف فلانقين وحنشعل الله هنا المقال كلايك سارتي سو ضد بدن جودها يوتيوب كوسي جارو هذا ولا لا يلين تامر كانت قوتين كبعدي وحن فكرة الكواد أن كل السوق عادنا يا كومبانيال لده graduation company أو كشقية dhammaan waxyaalaha badeecad noqon kara ee qalin jabinta jaamacadaha dugsiyada sare ay u baahan karaan oo dhan u diyaariya magaalada marka ay degan yihiin kumbaniyaashan hadda walaalayn adeegyada ay qabtaan waxa kamid ah waxa u diiwaan gashan dhammaan naqshadaha dharka qalin jabinta jaamacadaha magaalada ka jira qalin jabintaas oo dufcaduhu darajooyin kala duwan ay leeyihiin qaarka kuwa bachelor's degree qaadanaya kuwa master ka qaadanaya kuwa PhD ga qaadanaya ayaa waxay gaar uga kala kireeyaan bahalkan gowns kala dhaho ee qalin jabinta la xidho iyo graduation hat-ka koofiyada qalin jabinta iyo waxyaalaha adeegyada giftiga ee hadiyadaha la siinayo iyo qalabkooda waxay kaloo sameeyaan service ah sawir qaadis oo booking ay u sameeyaan maalinta ardayda oo qof professional loo soo dirayo oo meesha goobta qalin jabinta xafladu ka dhacayso dhammaan ardayda sawir kaga qaada haddaba company waxa jirta Churchill Gowns la dhaho oo wadanka Ingiriiska ku yaala oo qalin jabinta kala shaqeeya dhammaan jaamacadaha Ingiriiska waxaad arki kartaan jaamacad kasta ku qortid dharkeeda iyo qalin jabinteeda ayaad ka helaysaa waa dalbanaysaa next day delivery ayaa lagu keenayaa maalintii waxay kaaga kareynayaan $50 $35 laakiin inagu haddaad dharka diyaarisid $25 haddaad maalintii ku kareysid ama $20 oo kale oo hal mar 400 arday oo qalin jabinaysa aad 400 oo dhar oo kala duwan aad ka kareysid oo $25 dakhliga ka soo baxaya wad garanaysaa inaga waxaad arkaysaa marka dalkii tagtid dhalinyaro meel photo ku sii wada cararaya oo dharkii qalin jabinta wata qaar meel giftiya taagan oo karatoon kabihii laga saaray maartay bac gifti loogu duuduubayo qaar waxaad arkay wixii oo dhan ba meel kala duwan laga doonanaya halkan sida website-kan aan tusaalaha idin soo dhigayo oo kale serviceyada qalin jabinta ku saabsan oo dhan ayaad website u dhisaysaa ka bacdi jaamacadaha contract la galaysaa jaamacaduhu markii qalin jabinta soo dhow yahay sida anaga jaamacadaha Ingiriiska oo kale iyaga ardayda email u diray waxay leeyihiin company-gaas la xiriir adeega qalin jabinta dharkii jaamacada qalin jabinta oo dhan iyo halkaas company-gaas aad ka helaysaa marka graduation company ayaa la dhahaa shirkado badan ayaa sameeya website-yadoodana linkigooda xagga comment-ga idin soo dhigaya waad ka fiirin kartaan qof adeega wada qabta footooyinkii dharkii giftigii wixii oo dhan hal meel u diyaariya oo jaamacadaha magaalada ka jira oo dhan u qaban kara ayaa loo baahan yahay wax oo dhan hada kala gaargaar bay meel u yaalaan marka company noocaasa dhalinyaro wada asaasi kartaan oo fikradii koodan in la wadaagayo aad bad fikradaha ganacsiga soo weydiisaan marka insha Allah fikrada maanta aad meel ku qorta fikrada labaad walaalayaal in la wadaagayo aan rabo inaan insha Allah halkan kula wadaago waxa kamid ah sector aad iyo aad u koraya oo maxay ahayd fursad badan ay ka banaan tahay oo ah clean energy ama solar-ka waxa loo yaqaano solar panel installer dadka xira tamartan solar-ka loo yaqaano guryaha u xira waxaan ognahay korontadu waxay kamid tahay badeecadaha ugu qaalisan dalkeena ka jira oo halkii kilowatt wax $1 ku dhow 0.6.7 dadka laga qaado iyagoo dadku inuu laga yaabo inay electronic badan ay isticmaalin oo talaagado iyo TV iyo qalab dhowr wattkiisa oo dhan la tiri karo la tiro koobi karo ay guriga u yaalaan haddaba solar panel installer dad ku takhasusay shirkado baa sameeya oo qalabkii iyagu gada oo xidhistii lacag badan dadka kaga qaada qof professional oo adeegan fulin kara waa inuu barto solar technology solar ku soo shaqeeyo solar panel-kii controller-ka iyo wuxuu qabto battery-yaasha noocooda wanaagsan lithium battery-gi ee dabka kaydinaya korontada inverter-kii dabkii maartay si gudbinayay waxyaalihii oo kala duwanaa ee solar-ka u baahnaa oo dhan qof barta oo gaarigiisa ku qaata jaranjaradiisa kala baxaysa wata adeegaas oo dhan marka iyo magaalada ka fulin kara oo dadkaas solar-ka u xiri kara solar panel-ki isagu haya control-ladii isagu gadaya inverter-radii gadaya battery-yaashii noocyadoodii kala duwanaa gadaya sidoo kale charger-radii solar-ka la shaqeynayay laambadihii loogu talagalay nooca maartay korontada yar isticmaala ee energy saving lamps-ka ah waxyaalahaas oo dhan qof ay u diyaarsan tahay oo dadka tamar miyiga magaalada adeega u qaban kara
solar panelka installerka waxa la dhahaa wadan kasto caalamka kor baahidiisa sii badanaysa clean energy-ga aad iyo aad wana suuq koraya weeye sanadkii 15 ayuu dakhli ahaan wadan kasta koraya inaguna alxamdulillah waxaan ka mid nahay wadan tropical oo qoraxdiisu ay iska joogto 12 saacadood ay haysanaa marka certification maxadada farsamooyinka gacanta laga bartaa sida solarka loo xidho dad badan ayaa bixiya magaalada joogtada ka soo helaysa oo raadin kartaa marka cilmigiisa iyo qaabka loo install gareeyo ka yar iyo ka weyn iyo waxa dhan aad baratid marka ka bacdi Dubai, China, Turkiga meel kasta u dirso qalabkana hadhowto customerka mid iyo 2 iyo 3 ugu bilow dadka macaamiishaada marka dad badan ayaa ka shaqeysta hadaad YouTube-ka ku aragtaan solar panel installer aad ku qortaan waxaad arkaysaan dad badan oo ku shaqeysta oo sanadkii ilaa $100,000 qaarkood sida videogana halkan idin soo dhigayo oo kale ay dad dhalinyaro oo idin la mid ay kaga shaqeystaan caalamka marka solar panel installer waxa weeye waa fikrad aad gaarigeedii haysatid qalabkeedii haysatid aad miyo magaalada kaga shaqeysan kartid oo biyaha aad ku soo saari kartid oo korontada aad ku soo saari kartid waxyaalo badan solarka energy-ga aad ku qaban kartid marka fikradda labaad aan siinay walaal waa solar panel installer waxaan filayaa halkaas aan ku soo qoraya YouTube-kana ku qora aan u sii barbaara waa fikrad labaad fikradda saddexaad maanta halkan kula wadaagayo ayaa xilligii xagaaga ayay nagu soo dhow xilligii qurba joogta iyo dad badan oo fasaxa ay wadankii ku soo laaban jireen marka xilligan oo kale dadku qaar baa hotel ku daga qaar baa dad qaraabo ah ku soo duldaga waxyaalahan oo kale wax iska jecel yihiin dadka qurbaha xilliga xagaaga carruurta keenaya guryo goglan oo nadiif ah inay kireeyaan hadaba guryahaas magaalooyinkeena waxa lagu yaqaanaa guest house aad iyo aad ay xaqiiqatan u tayaliitaan tayas badan oo saasa ma laha guryahaas guest house-yada ah meel lagu kireeyo ayaa adduunka jira oo aad ka helisid cunto karintii jikadii internetkii TV-gii waxyaalo badan oo kala duwan aad ka helisid Airbnb ayaa la dhahaa shirkadda guryaha lagu kireeyo Airbnb-gu marka dadka Soomaaliyeed magaalada kaliya ka faa'iideysatay aan ilaa hadda arkay aad guriga kaga dhex kireysan kartid waa Hargeysa saad aragtaan Hargeysa intaas oo guri ayaa ku dhex jira hadaan application-kayga Airbnb-ga aan ka tuso intaas oo guri ayaa Hargeysa Airbnb-ga ka sii dhex kireysan kartaa magaalooyin badan oo aad loo yimaado oo ay ka mid tahay Muqdisho ay ka mid tahay Garowe oo ay ka mid tahay magaalooyinka kale ee waaweyn ee Soomaaliyeed oo dhan Airbnb kuma jiro marka hadii aad yani waska diiwaan gelin kartaan oo fursad aad ka faa'iideysan kartaan dadka dhalinyarada ayagoon guriga lahayn ayaa xataa ka shaqeysan karaan xilliyada xagaaga ee cagtu badan tahay xilliyada doorashooyinka jiraan oo kale xilliyadaas oo dhan ayaad guriyo noocaasa ayaad short term rent waxa la dhaho muddo 3 bilood oo cayiman oo kale ayaad kireysanaysaa marka dadka waxaad u dhigaysaa cookertii wax ku karsan lahaayeen fadhigoodii iyo chiefkii iyo TV-gii iyo internetkii saddexda hadad guriga ugu diyaarisid habeenkii waxaad kaga kireynaysaa $25 halkuu qofku hotel $50 inta uu ka helayo tagi lahaa cuntadiisu guriga ku samaysan karaa dabcan qofka ka soo kireysanaya Airbnb-ga ka soo dhex kireysanaya waxa ka hubinaya shirkadda Airbnb baa qofka waxay weydiinaysaa ID-giisa maxay baasaboorkiisa waxyaalahaas oo dhankaas soo xaqiijinaysa markaas aad qofkii la kulmaysaad furihii ku wareejinaysaa macluumaadkii aad kala qaadanaysaan oo habeen uga kareynaysan marka fikradda Airbnb-gu magaalada Hargeysa si fiican way uga shaqeysaa dad badan baa guriga ku dhex galiyay waxaan isleeyahay dhalinyaro badan ayaa ka shaqeysan karta oo guryaha dad u sii kareyn karta khidmadna ka heli karta ama guri labaad hadaad leedihiin ay dhex gelin karta oo kaga dhex kareyn karta gaar ahaan magaalada Muqdisho aad iyo aad uga badnaa hal guri baan filayaa ku jira guryo badan oo guest house la soo gelin kara fikraddaas aan oran lahaa dhalinyarada ka shaqeystaan insha Allah intan muuqaalada lamida ku kulmi doono fikradihii beeraha ganacsiga greenhouse ku saabsan halkaas aan idinku dhaafayaa fikrada kale ganacsiga waa inoo soo wada muuqaalkan iyo muuqaal xiiso badan intay ku kulmi doono walaalkiin Sakriya Cabdullaahi Cali. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.